maleeshiyad hubaysan ayaa deegaan hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ku dileen 2 ruux oo la sheegay inay kamid ahaayeen shacabka halkaas ku dhaqan. wararkii ugu dambeeyay dilalkan iyo waxa ay ku saleysan yihiin maleeshiyadka dilka geystay inay goobta ka baxsadeen halka ay ka soo jeedaan iyo wararkii ugu dambeeyay halkaas ka imaanaya ayaan halkan ku eegi doonaa saaxiibayaal ee soo dhawaada. wararka ka imaanaya duleedka degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe si gaar ah deegaan lagu magacaabo Koogaar oo kamid ah deegaanada hoostaga degmadaas Cadalle waxa ka dhacay dil arxan darro ah oo loo geystay 2 ruux oo la sheegay inay shacab ahaayeen waxaana warar kala duwan ka soo baxayaan dilka labadaas ruux. xogaha hordhaca ah ee aynu helayno ayaa sheegaya in dilka kooxda geysatay ay yihiin koox maleeshiyad ah oo ka soo jeeda deegaan ahaan Xaaji Cali oo kamid ah isla deegaanada hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaana la tilmaamayaa markii ay dilka geysteen kadib inay goobta ka baxsadeen marxuumiinta la dilay waxa lagu kala magacaabaa Allah u kala naxariistay Muxyidiin Caraale iyo sidoo kale Fanax Macallin waxaana la sheegay in labadooduba ay kamid ahaayeen shacabka ku dhaqan gudaha deegaankaasi Koogaar lagu magacaabo oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan waxa mid kamid ah la sheegay in uu ka shaqeynayay ceel biyuud halka ninka kalena la sheegay inuu ka shaqeynayay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee ku taala gudaha deegaankaasi Koogaar lagu magacaabo oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan. labadooduba aana qabiil ayay xoguhu sheegayaan in loo dilay taasi oo maalmihii la soo dhaafay ka jirtay deegaankaas iyo deegaano kale oo ku hareeraysan isla markaana hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. degmadaas iyo deegaanadaasaba waxa dhowr jeer ka dhacay dilal arxan darro ah oo sidaan oo kale loogu geystay macallimiin dugsi Qur'aan, caruur yar yar, haween iyo dad kale oo da ah oo iyagana kamid ahaa dadka ku sugan deegaankaas Koogaar lagu magacaabo oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan. maleeshiyadka dilka geystay oo goobta ka baxsaday waxa saaka jira dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan oo ay wadaan maleeshiyadka dilka loo geystay iyo kuwa dilka geystay intaba iyadoo laga cabsi qabo in halkaas uu ka dilaaco dagaal u dhaxeeya beelaha halkaasi dilalka isku geystay horeyna dagaalkooda uu soo jiitamay. waxa jiray waan la dhexdhigay dhinacyadan laakiin markii dambe lagu guul dareystay oo xabad ay bilaabatay taasi oo marar badan dhacday in maleeshiyadku ay fuliyaan ama ay geystaan dilal aanooyin qabiil ku salaysan oo xiliyada habeenkii dhaca iyadoona saaka dilkii dhacay uu ahaa dilal ay ka argagaxeen dadka deegaankaasi Koogaar lagu magacaabo ku sugan oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan. ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay ma jiro maamulada deegaanka iyo kan degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan kan gobolka oo ay kaga hadlayaan dagaaladan ama dilalkan u dhaxeeya labadan dhinac oo labadan shakhsi loo geystay. waxay ku soo kordhay saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadalaya IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.